Soomaaliya sanadda 2015 magaalada Hargeysa. runtii waxaan isleeyahay tan adeegyadeeda aan soo bandhigin waxa aan ku faanaynaa ama aan kaga duwanahay isleeyahay shirkadaha kale oo dhan waxaan nahay shirkadda kaliyaata ee xubinka ah runta ganacsiga ee Pan Africa ee halka joogta Somaliland aan ka nahay martasharafka kale ee Puntland socdaan ka mid nahay jaamacadda carabta ganacsiga martasharaf ka socota iyagana xubin baan ka nahay marka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa runta ganacsiga Somaliland oo soo bandhigtay ama soo ururisay dadka kala duwan ee miisaanka leh iyo shirkadda AOA oo runtii si fiican u soo dabaqaatay haddaan u soo noqdo shirkadda Takaful ama shirkadda caymiska ee Takaful xarunteedu Hargeysa tahay waxaan bixinaa adeegyo badan adeegyada bixinaa waa 230 adeeg 230 waxaan maanta ku soo bandhigaynaa 16 ka mid oo intooda badan aan Soomaaliland ka jirin qaaraan bariga Afrika ka jirin qaaraan bariga iyo bartamaha Afrika baa ay marka anagu waxaan ku qeyb qaadanaynaa adeegyada 16 oo aan qiimaynta dadka u samayn doono anagoo runtii ku faraxsan in madaxdeena halka fadhidana aan hortooda ka sheego adeegyada aynu qabano waxaa ka mid ah ama adeega shirkadda Takaful caafimaadka caymiska caafimaadka cid walba gashaa si fudud loo gashaa adeegyo wanaagsan oo ku heshaa marka mas-uuliyiinta qaranka waxaa jira adeegyo gaar iyo ganacsatada iyo dhalinyarta aan ugu talagalnay oo mid ka mid ah hadduu waddanka ku xanuusto waxba laga qaban kari waayo si degdegaa waddanka uga qaadnaa annagoo diyaarad ku qaadana meesha ugu dhow ee laga helayo adeegaasna aan gaadhsiino adeegyadayada waxaa ka mid ah aan ku soo bandhigayno adeega caymiska dhoofka xoolaha adeega caymiska soo dejinta alaabaha adeega caymiska dhismaha adeega caymiska haddii xatooyo ama alaabtaada la xado magaranaysaa kab lagu siiyo adeega loo yaqaano dhaawaca dadka soo gaadho waqtiga ay shaqada ku jiraan iyo adeega weyn ee aan ku caanamaanay ee aadka u ballaaran ee waddankeena loo baahan yahay ee loo yaqaano adeega gaadiidka iyo adeegyada kale ee dhoofka caymiska dhoofka caymiska dhismaha iyo wixii injineer ama mechanical ahaado ama electrical ahaado ama civil ahaado intaba la xidhiidhayay intii waqtigoo aad u kooban anoo soo koobaya waxaan mar labaad u mahad celinayaa jaaniskaadna siisay inaad nagu soo booqateen xaruntayada runtii Takaful Insurance of Africa waxay bixisaa caymis islaamiya caymis waa shirkadda kaliyaata ee caymis bixisa ee imika waddanka joogta Takaful waxa waddanka laga aasaasay 2013 waxa ay bixisaa caymisyo kala duwan oo aan xagga dambe ka sharaxi doono waxa aanu xafiisyo ku leenahay dhammaan gobollada waddanka oo dhan caymisyada aanu bixino waxa ugu horeeya caymiska caafimaadka oo aanu siino hay'adaha organizationska individualska dadka caadiga ah familiyada caymiska caafimaadku waxa uu shaqeeyaa qof kasta oo nagu soo biiro waxa aanu siinaa kaadhadhkaasi ku isticmaalaan dhammaan cisbitaallada waddanka haddii ay u baahdaan cisbitaal dibadeed oo marxaladda qofku ku sugan yahay lagu daweyn kari waayo waddanka waxa aanu u dirnaa dibadda caymiskaasi waa kii caafimaadka waxa aanu bixinaa caymiska gawaadhida caymiska gawaadhida waxa uu shaqeeyaa waxa la caymiyaa gaariga oo laga caymiyaa accidentka ama shilalka marka qofku gaarigiisa uu caymiska soo geliyo Takaful waxa ay qaadaysaa mas'uuliyadda qofkaasi haddii gaarigiisu shil galo ama isagoo ha geysto ama ha loo geystay inay iyadu mas'uuliyadda qaado oo arrintaasi ay ka bogsiso labadii dhinac ee shilka kii kale iyo kii loo geystayba Takaful waxa ay bixisaa caymiska marine coverka oo ah caymis laga soo qaadayo alaabta dhoofinteeda iyo marka alaab inoo soo degayso markaba oo kale for example baad alaab soo saaratay haddii alaabtaasi ay degto ama alaabtaasi ay wax noqoto biyuhu soo galaan ama ay jajabto Takaful Insurance iyada qofkii caymiska ay siisay dib ugu celinaysa qiimihii alaabtiisu ahaa kaana waxa la yiraahdaa Marine Takaful waxa aanu bixinaa goods in transit oo alaabin meel laga qaado oo meel kale la geeyo waa qayb ka mid ah waxyaabaha aanu bixino runtii caymisyada aanu bixinaa aad bay badan yihiin laakiin kuwooda ugu muhiimsan ee aanu imika dadka u soo bandhigaynaa kuwaas ugu muhiimsan aanu Hargeysa ku leenahay laba xafiis Hargeysa ayaa u ah main office Hargeysa ku yaala xafiiskayga weyn wuxuu ku yaalaa marka dhinaca galbeedka magaalada looga sii baxayo iskuulkii Bridgman ka soo horjeedna xafiiskayga kale waxa uu ku yaalaa suuqa hoose
عمر حاشي فوق علم عمر حاشي وأنا كلنا هاي كنتي حفيسي داسي بالبوردان ولنا هاو نمبرز كي كقرين لبضع حفيس بانو كلنا مجال هرجيسة وحنا حفيس كلنا مجال بربرة برع بورما وحكلا تكافل كشقيسة ساوث سنترال كصوماليا وحنا حفيس كلنا هاي مقدشو كسمايو جروي يو بوساسو وحكلا حفيس كلنا هاي نيروبي يو واتشير dhammaan waan ka shaqeynaa goboladaas oo dhan marka dadkuna xarumahaas nagala soo xiriiri karaan telefoonada iyadu had iyo jeer ale waxa ay ku qoreen brashuurada iyo dokumentka aanu qaybino bulshada waxa leedin hore u soo gaadha caymis weydin badbaadinaysa runtii caymisku waa wax loo baahnaa waxa laga yaabaa marxaladda aynu imika marayna inaanay dad badan fahmin laakiin waddankeenu waa u baahnaa for example oo kale waxa dadka naftii u keentay waxa la yiraahdaa maktab gaari baa shil galaya qofkii waa la xidhaya mag baa la soo ururinaya dhibaato badan baa inaga haysata takaaful waxay ka qaadaysaa bulshada culayskii magta looma baahna qofku hadduu gaarigiisa inshuur garaysto waad ka maarmaysaa familigii iyo odayaashii iyo dadkii ku xiijinayay ee lacagta ururinayay waayo gaarigaagii iyo shilkaagii waxa la wareegtay takaaful caafimaadka oo kale haddii familigii caafimaadka aad geliso mushkiladii dhakhtarkee soo noqonaysay ama qofkii markay xanuunku ku yimaado dibadii loo diray dhibta iyo familiga wax isku tagayeen takaaful baa mas'uuliyadii qaasa marka dadka waxaan leeyahay takaaful waxay diyaar u tahay inay idin barto waxa ay hayso ee aanu dadka u soo bandhigino maadaama aanu product cusub waddankii keenay waan idin baraynaa waana wax culays dadka ka qaadi doona For sure, we can see Somaliland is going somewhere, which nobody outside Somaliland perhaps knows. That brings me to the next question. You need actually to give yourselves more visibility out there so that people can know what Somaliland is doing. Because I think this is exciting for me and for us in the region, East Africa. And we welcome Somaliland, in fact, to come and start doing business with us. We have just recently signed an MOU with the Somaliland Chamber. We hope that in the coming days we will see more of Somali businesses entering East African markets and vice versa. East African businesses coming to Hargeisa and other cities like Berbera and so on. Thank you. So how you can see the Carrefour Insurance Africa in your area, please? How you can see? It's the first company, I think so too. dhanka kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay mas'uulka ugu sarreeya ganacsiga geeska Afrika isagoo sheegay aad ayaan ugu faraxsanahay in aan imaado Somaliland waxaan ku arkay nabad horumar iyo xasilooni shirkadda caymiska ee takaafulna waxa ay qayb weyn ka qaadatay aaminaadda iyo horumarinta dalka waxaana lagu kalsoonaan karaa in dalka la maal gashado iyadoo la soo marayo dhanka caymiska tani waxay u tahay fursad horumar ah dalka Somaliland iyo guud ahaanba geeska Afrika iyadoo dalalka kale ay isku haleyn karaan haddii ay helaan caymis ay ku caynsadaan hantidooda caafimaadkooda iyo maalkooda